maanxin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan iraahdo waxaan ugu soo socdaa hadii la yiraahdo sugeynaa intii barakaysnayd Eid Mubarak Eid wanaagsan ilaahay ku samaad iyo nabad iyo ku ciidaha nagu dhigo Eid aan sugeyno fooda nagu soo haysta waxaan ka hadlayaa doorashada inaan ka hadlaan rabaa doorasha socota alxamdulillah aqalki waa dhismay maxay baarlamaanku waa doorteen maxay gudoonkii waa la doortay waxaan rabnaa marka xildhibaanada inaan Soomaaliyeed inaan la hadlaan rabaa in Soomaaliya markii inta dagaal sokeeye dhacay la kala go'ay oo la kala cararay oo dhibaato ay dadkii kala qaaday oo qori la isla dhacay oo la isla dhacay oo la isbaabiyay oo la istilay oo la kala adkaan waayay soo dadku waa kala adkaan waayay qori waa lagu kala adkaan waayay waa la dhibtooday magaaladan 15 ninba xoogaa xirtay xaafadiisa xirtay bush baa dhici markii dambe waxa la gaaray ilmuhu inay baabuurka hebel warloo hebel baa iskale halkaas la gaaray waa la fikiray waa la shaqeeyay khayr Allah siiya dadkii wax qaradka ah maxay aqoonyahanka dadka dawladii hore ka haray oo hambada ahaa dadkii firfircoonaa dhalinyarada ahaa markaas anigu dhalinyarada dadkan isku tirinay marka wax la raadinay dhalinyarana hadda la waayeelkan ku jira waa dadgalka waa gaarsiiyay inaan saan noqono war la fikro waxa la warsaan xabad lagu kala adkaan waa qof hari waa maxay aqli ma bajiraba oo aqligayga anaga aan hadda aan haysanaa waxay tahay dagaalkii markuu dhacay dawladii naga baxday ciidamada dadka shacabka amar baalis waxa ay xiriyaha inta fog tagtaan jabsada qof qoriga gaaraha qaad socda dhay qofka qoriga jiiday dadkii masaakiinta oo marasta oo qoriyaha laga ilaalinaya anaga aqligayga u fasaxo waxa leeyahay u furtaan qof askartiin waxa la qabiilkiina ku kala feelo taasay aqliga anaga naga soo baxa markii la isku baaba'ay oo dhibaato timid oo markii qoryaha aan isku dhameeyno isku baabi'inay dawladaha dariska ay aan ka soo balkeenin jiro ganacsi suuq la furay suuqa cirtoogta baac ganacsiba uu boominka ugu fiican baa qoryaha noqday wax cilinayo male wax ka ciideynaya male qof la hadli karo male sharci male nidaam male xanuun baa la isla dhansiiyay waa maxay waxa cirtoogtii qor intu ka xun dadka loo haystaa lagu baabi'inay qof hadda socda nafta looga qaaday waxaan garan weynay qoriga suuqa ayaan qori u furin qori suuqa u furin aan ka dayno wariyaan saan la dhihin war isbaaradii hebel waa la isogay waa isnaqaana dadka xamar jooga waa la isqaana isbaarooyin baan lahayn isbaarooyin baan ugu shaqeyn jiray adduunyo socotay saas markii loo fikiray oo wixii si badanay si barakoobayaan baa war waxa loo baahan yahay in aqligu fikiro waa la isku yimid ilaahay baa qadaray dawladda Djibouti Ismaaciil Umar Gale madaxweynaha ka yahay waana hoosti gareys warqadan marka la dooranayo shaqa laga soo qabtay in warqad la doorto oo la yiraahdo anigu aan yiraahdo Sahro Maxamed Axmed baan u codeeyay oo dhaladaas lagu rido sanduuqaas dhalada ah oo loo jeedo lana accept gareeyo horta hawl baa laga soo maray waa hawshii meeshii ugu Soomaaliya uga baxday dhibkii qoriga waxaan rabaa marka ninka inta warqada loo dhiibay ama gabadha warqada loo dhiibay meesha la gashay oo la yiri ku soo qor magaca aad dooranayso oo haddana la aqbalahayo oo tirada la isku muquuninayo tirada badan maceen baa la biday naf baa la biday waa waxa keenay maanta iftiinka la haysto inay timaado markii la kala adkaan waayay markii qoriyihii maxay lagu kala bixi waayay markii aqligayga uu nasiiyay laba nin baa ka isqabatay oo dagaal ka bilowday Allah u naxariisto labadaba jannadii geey Aydid iyo Cali Mahdi 20 markay gaareen oo kursi barakoobeen baa saa lagu soo aruuriyay dawlad baa la sameeyay dawlad baa ka dhalatay dadka Soomaaliyeed waxay accept gareeyeen qofkaasu waxa uu xariiqay wuxuu ku soo baxa in la shaqeeyo alxamdulillah iftiin baa socda waa la isku dhiibay muddadu waa 4 sano muddadu
وأفر سنة أيام المعدودات وي سواء كشلوا نوعها ونور مال وحي النور وأيام المعدودات وقت اللي ترناي المهيرك أنو عن برلمانك أوضع ما مضى ويرك وأنقف أنا أقفله كتيرن waxaan u sheegayaa kitaab basaas la isku rasafay dhac gacanta saar kitaabka aad gacanta saarteen markaad gacanta saaraysaan kitaabku wakiil buu ka yahay ilaahay wax rasuulku kaleey salaatu wasalaam kitaabkan baa ilaahay u soo dhiibay waa hadiyadii samadana loo kaga soo diray ilaahay baa soo diray tanziilu min rabbil caalamiin waxa ku qoran inaad fahamtaan oo qalbigiina uu u daadago horta ilaahay idinku duubo gacantaad saartay waxaad ku dhaaratay waxaan u maleynayaa waxa lagu dhaartaa dalka iyo diinta iyo dadka iyo waxa saas lagu dhaartaa inaan daacad u ahaanayo dalka u shaqeynayo lagu dhaartaa qolada Ameerikaanka oo maxay Bible-ka ku dhaarata ay constitution-ka ku dhaartaan hadaan qaldaneen constitution-ka waana ilaaliyaan constitution-ka waa la ilaaliyaa constitution-ka state-kaas uu ku midoobo lagu heshiiyay baa la ilaaliyaa kan ilaahay baa soo diray waa kalaamka ilaahay wax walba ku yaal kitaabka quraanka wax ka seegan ilaahay wax walba waa noogu dhigay hooyo wiilkaygiyo fiicanow xildhibaanow maamoy gabaray fiicanay xildhibaanaday ilaahay gacanta u saarin waxaadan ka rur sheegay ilaahay qabashadiisu waa dhowda waana culusta markaad inta laab gasho aad adoo laaluus soo qaatay aad u codayso hungurigaaga lacagtaas aad qaaday waxay kugu noqonaysaa sun iyo deebaaq waxay wax u dhimaysaa caruurtaada waxay wax u dhimaysaa mustaqbalkaaga dalkii iyo dadkii iyo diintii qof anfacayo u dooro oo adigu aad isleedahay ninka qofkaas dalka iyo diinta anfacaya ha dooran qof lacag ku siiyay ha dooran qofku qabiil ah ha dooran maxaa yeelay mas'uuliyaddan qaad adinka baarlamaanka waa timaadeen hadda ka hadlamayna saa ku timaadeen alla qadari inaad timaadaan war mas'uuliyad baa idin saaran war yaan lagu cayaarin war yaan laga dhigin mas'uuliyadda qabiil war yaan caadifad laga dhigin war yaan nin jeclays laga dhigin war Allah subhanahu wa ta'ala lagaga boqo mas'uuliyadda Allah subhanahu wa ta'ala lagaga boqo nabi Yuusuf markii maxayto u dhibaatooday oo dibka uu galo xabsiga laga soo saaray riyadiisii ninkii uu loo keenay boqorku wuxuu yiri waxaan ka dhigayaa waxaan ku dhiibayaa markuu furay riyooyinkii waxaan ka dhigayaa madaxban ka dhigayaa wuxuu yiri marka hore naagtii warkeedii meel hal la saaro ila nabiga waxa la naag baartay masabiyado dhibaato ku ritay hal la saaro meel illa ma uu magaciisa ka kaliir garaysto oo tir ana dalbaday bari buu ka ahaa horta shaqadii faraha ma saarin markii kalena wuxuu yiri qasaanada la ii dhiibay amiin xafiidahan qasnada la ii dhiibay waa xafiid war waxaan amiin xafiidahan wax nooga dhiibinin war dalkaanu amiin xafiidu u baahan yahay war dadkaan qof aan baahnayn oo gagaban buu u baahan yahay war dadkaan dhibaatay soo mareen war dadkaan waa soo dhibaatoodeen war dadkaan waxay ku dhibaatoodeen wax yar oo Soomaalidu waxay tiraahdaa aqoon xumo irmaan xumo waa ka daranta war anagu maanta waxaan u dhimanaynaa u baaba'aynaa in xogaaga yarka oo la haysto dadka la gaarsiiyo war waxaan u baaba'aynaa in askarigu mushaarkiisa helo war waxaan u baaba'aynaa in darawalku mushaarkiisa helo war waxaan u baaba'aynaa in la noolaado abni la helo maanta ilaahay mahadoo ka gaadhay 10 saac oo habeenimo laga soo adeegtaa maxay suuqyadu furan yihiin nabadda ilaahay baa keenay laakiin askarteeda taagan oo socota oo daraad falki ka dhacay daqiiqada lagu soo saaray daqiiqad u boga xal marka afayeenku wiilka uu hadlayay wiilashii istilay daqiiqada lagu soo saaray askarteeda heeganka oo taagan mushaarkoodii bay helaan war annaga ilaahay baan nala xisaabtamay war annagu ilaahay baan ka baqaynaa war annagu ilaahay baan u tukanaa war annagu ilaahay baan u soonnaa war asagaan janno ka sugaynaa aniga
cimrigayga inta badneed waa soo qaatay waxaan alla ahayn waligayba kama baqan waligay kama baqan allaan ka baqayaa ummadaas nimayo xildhibaanada iyo gabdhaha xildhibaanada dalkaas hogiyaan laga riday dalkaas ha loo doorto qofka isleedihiin waa ka samata bixinaya qofka isleedihiin waa ka annagu waxaan rabnaa qof amiin oo xafiida oo qasnada noo ilaaliyaan rabnaa annagu waxaan rabnaa qof amiin oo xafiida oo dalka ilaaliya annagu waxaan rabnaa qof amiin oo xafiida oo sharafteedii soo celiyo ilaaliya waxaan rabnaa ummaddu inta kale waa la deeqi kartaa waana deeqi waxaan ugu qabiil ah qofka u taagan maxay dalkaas iyo dadkaas dhibaatadooda inay ka hortagaan xildhibaanaad tihiin mas-uul berri ma ahaanaysaan ayaaman macduudaad 4 sano waxa kugu taga haddaad dhalinyaro tihiin curdan baa tihiin waa cusub tihiin laalu shaqaadanina maandhooyo iska daay hooyooyinu iska daay maandhooyinu korkiina ha barinina korkiina xaaraan iska gelinin laalushku waa xaaraan kan qaata iyo kan la siiyo labaduba waa xaaraan diinta islaamku ma ogola waxaad heli kartaa waxaaga ilaahay kuu barakeynaya ilaah waxa isiisa ay barakeedahay waxaad heli kartaa saa idin barakoobaysa dalka qaartar yaan la gelin dadka yaan la qatar la gelin dalka waa wada leenahay aeroboorkaas shayga laga fagan jiray shay waa is ognahay shayga laga fagan jiray aeroboorka gabdhihii taga waa kuwaan waa is ag fadhinaa warmaadhow ha faganina shayga warmaadhow ha faganin warmaadhow dhibaa laga soo maray maantana international airport way marka waa ku farxaa diyaarado deganaysa waa u duceeyo ducan ka daba dira maxaa yeelay waxaan soo marnaa ogna intee qof ku maqan balidoogle iyo xamar dhexdooda dad ka yimid America oo waalidkood inay arkaan u yimid baa dhex aan soo gaarin oo dhex lagu cunay intee qof macna la'aan ku maqan war xageed u socotaan war xageed u soconaa war ragina baasaboorada haysta war ragina dhalinyarada ah war ragina aan naxayn war ragina aan naga xishoonayn naga xishooda dalka iyo dadka ka xishooda markaad hadlaysaan xishooda mas'uul baanahay waxaan rabaan sheegaya maya war carabka ilaahay baa qooyay war carabka ilaahay baa iska leh war waa idin qabanayaa inna badshata rabbika la shadiid war jooga war inta qof inta saaxata aan soo kicino soo toosin war waa hadli kartaa oo hadlinina war waad riixi kartaan oo riixinina war waxa ilaahay idinku ogyahay oo dalkaas iyo dadkaas ku sabata bixi karaan hal la sameeyo ma dhowr qoladina baasaboorada waana roginin anaguna joognaan rabnaa anaguna meesha ku noolaan rabnaa kan inaan ka dhiganaan rabnaa Los Angeles iyo New York iyo Paris iyo Bonn inaan ka dhiganaan rabnaa kan oo ku noolaan hana raad bahana saahno kilkilinin hada adunku haysataan meel tagtaan meel aadan ma haysanne hana qaxinin hal la sameeyo maxay to qof walbo wax ilaahay kugu ogaado rabbigay uu kugu ogyahay ka dhiga doorashada yaan la gelin maxay to yaan la siyaasadayn yaan la qabiilayn hal la qarameeyo waa in la qarameeyaa aqligaaga aad qaramaysaa anu saar hadaan nabcahay oo iiga fiicanta dalkii dadka waa siinaya oo ugu qabiilahayn waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo ilaahay inaan wada barino hoggaan khayr qaba oo ummadaas u fiican oo asagu u raali ka yahay inuu noo soo saaro anaguna aan dadaalno billahi tawfiiq